wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya ahna mudane ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo warbaahinta kula hadlayay gudaha xarunta golaha shacabka ayaa tilmaamay in badan oo ka tirsan xubnihii maanta doodayay ee qaybta ka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ficiladooda ay u adeegayaan al-shabaab sidoo hadalka u dhigay waad marxaati u aheedeen wixii meeshan ka dhacay wixii maanta meeshan ka dhacay waxa way wakiilo shabaab oo shabaab soo dirsaday oo magac xildhibaan ku joogo oo shaqo xildhibaan baarlamaanka inay ka dhex qabtaan wado ficilkooda iyo actionkooda oo u gargaarayo shabaab maanta waxa loo kulansanaa in laga hadlo amniga waddanka waxaa fawdadan abuuray dhowr xildhibaan oo ficilkooda u adeegaya shabaab dhaqan shabaab leh shabaabna ah siday ku sifoobay shabaab waxa ay rabeenna waa inay yidhaahdaan shabaabaan wakiil uga dhexnahay baarlamaanka waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed meel kastoo jooga in ay ku baraarugaan in wejiyada meeshaan ka aragteen in ay wakiil u yihiin shabaab si fiican wejiyadooda u fiiriya maxaa ku jaban janannadeenna haddii loo yeeray si ay xog noo siiyaan inaysan bahsanayn maxaa ku jaban waxa ku jaban waxaa waaye rag shabaab u shaqeeyo oo raba inay u baahiyaan shabaab waxa meeshan ka socda ayaa ku jaban dabcan waa shabaab kuwa meeshan ka qaylinaya maantay baarlamaanka Soomaaliyeed suurageliyay inuusan shaqaynin waa shabaab aynu adeegaan dhanka kale wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ahna mudane ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odawa ayaa sheegay in wasiiro kuraastooda difaacanaya ay yihiin kuba hareer maraya shuruucdii dalka u tiilay waxa ugu baaqay gudoonka golaha shacabka inuu u hogaansamo dastuurka iyo xoroosaadka golaha waxaad ka warhaysaan oo u warhaysaan in loo ballamay in amniga magaalada Muqdisho la iska waraysto wasiirka amniga ayaa la wacay si loo qariyo ceebta dawladda ee arrimaha amniga ku saabsan dawladdu waxay wacday dhammaan taliyayaashii oo aan anagu wacanin kadib gudoonkii baarlamaanka ayaa wuxuu abaabulay in cod beena la qaado taasoo lagu leeyahay waxaa loo codeeyay in saxaafadda bannaanka laga saaro waxaan rabnaa inaan sheegno magaaladan waxa ka jira iyo duruufta ka jirta ciday ka qarsan tahay ma leh annaga dadka aan matalayna maalin walba qaraxay ku dhintaan ayagiyaa nala soo hadlay oo na weydiinaya sababta aan u matalno waxaan rabnaa inaan u sheegno in la xisaabtankii ay diidan yihiin wasiirada halkan ka qaylinaya sida saaxiibkay hadda iga horreeyay waxaa muuqata in ay rabaan inay dhibaatada magaaladan ka jirta ay been ku qariyaan magaaladan wax ka qabad u baahan tahay waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabad u soo jeesato dawladdu oo inkirmaadda ay iska dhaafto wixii meeshaan ka dhacana wax sharciya ma ahayn waxay ahayd in saxaafaddu ay joogto xeer hoosaadkaa qaba sharcigaa qaba waxaan rajaynaynaa inaan loo laaban mar dambe waa mahadsantihin